waxaan ka bixin karaa faahfaahinta maxaan idhaahdaa dhimashadoodu waxay ahayd 5 bay ahayd 5 dhimasho daawacuna maxaan idhaahdaa aad buu u badnaayo ilaa 10 dhaawac ayaa jira meydkii markaa way ka carareen markay ka carareen meydkii annaga ayaa haynay hadda aduu ciidanka Somaliland ayaa la wareegay oo aan ku wareejinay xiisadii bariga dhexe badda cas u soo wareegay ama u soo wareejiyeen wadamada Carbeed waxay u ahayd Somaliland fursad dahabi ah waxaana ka furmay albaab 30 sano dheeraad ay ka fur waayeen wadamada Carbeed iyo Turkiga haddaba aan dib ugu noqday bilowga mowduuca warbaahintan fadhigooda ee Muqdisho saacadii ugu dambeysay waxay qaadadhigayeen warar sheegaya nin dhalinyaro ah asal ahaan ka soo jeeda Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer magaciisana ay ku sheegaan Mustafa inuu dharbaaxay أحمد معلم فقه وزيرك كاشانديغا Soomaaliya xilli wasiirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu sidoo kale salaan mahadnaq mug iyo miisaanba leh u dirayaa golayaasha qaranka ganacsatada aqoon-yahanka haweenka dhalinyarada ururada bulshada iyo bulshada qurba joogga ah taariikhda Somaliland waa markii koowaad madaxweynaha shacabkiisa inuu mahadnaqana qofna lagama qadan xitaa waxa loo mahadnaqay kuwa kumitiyada u daata wadan walbana dadkiisa ayaa dhista oo difaaca labadana wala yimaadeen reer Somaliland shacabku waxa la oran karaaba waxay ka shaqo badan yihiin ba dawladda leegmaday iyadoo guud ahaan ba wadanka uu ka socdo barnaamijyada waaweyn ee laga soo horjeedo xadgudubka maamulka Yahuudda kula kacay madaxbannaanida Soomaaliya ayaa meelaha uu barnaamijkaasi ka socdo waxa ka mid ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dadweyne aad u fara badan sanadkan maanta maamulka Xasan ee reer Soomaaliya ba si kastaba way ugu jabeen awoodoodu waxay soo aroortay fadhi ku darir iyo dacayada raqiisan ka sameeyaan Somaliland ay shacabkeeda maanta ugu dambeysay warbaahinta ku hadasha afka maamulka Xasan waxay been ka faafinayeen Burco way lahaayeen waxa ka socda mudaharaadyo lagu soo horjeedo aqoonsiga Somaliland beentaasi hadii ku aadin lahayn bari laga yaabo inuu socon lahayd maanta sare Burco waxay ku wada maqnaayeen berbera halkaas oo ka socotay ama ka dhacdaba ciyaar dhaxmaraysa laba kooxood oo kala metelaya Burco iyo Hargeysa bismillaah saaxiib yeel ku soo dhawaada madal furan aniguna waliban maxamed aadan aan ku bilaabay mowduucan caaway warbaahinta Soomaalida gaar ahaan kuwa fadhigooda ee Muqdisho saacadii ugu dambeysay waxay tabinayeen warar sheegaya Axmed Macalin Fiqi wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya in lagu weeraray magaalada Dooxa ee wadanka Qatar oo dhawaanaanba wasiirku u joogo dhameystirka heshiisyo bedel u noqon doona heshiisyadii maamulka Xasan ama Soomaaliya ay kula jireen dawladda isku taga Imaaraadka horaantii bishan January kulan ay yeesheen golaha wasiirada maamulka Xasan Sheekh waxay ka soo saareen kulankoodaasi bayaan ay ku sheegayaan gabi ahaanba inay laaleen ama ay buriyeen heshiis nooc kasta uu yahaba way kula jireen Imaaraadka waxayna ku sheegeen sababtaasi in dawladdaasi ay u janjeerto xagga Somaliland qaybna ay ka qaadatay aqoonsiga ay heshay marka laga yimaado Mareykanka Imaaraadka waxa uu ahaa wadanka taageerada u bansiin jiray maamulka Xasan ama Soomaaliyaba military iyo dhaqaale ahaanba Qatar Sacuudiga Turkiga iyo Masarba oo la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen go'aankii maamulka Xasan ay ku oriyeen Imaaraadka waxay balan qaadeen inay buuxin doonaan kaalinta Imaaraadka maalmo ka hor Dooxa heshiis difaac waxa ku kala saxiixday dawladda Qatar iyo Axmed Macalin Fiqi matalaya Soomaaliya dawladda Qatar waxay qaadatay mas'uuliyadda inay bixin doonto mushaharaadka ciidamada tababarkooda iyo qalabeyntooda heshiiskan wajigiisa labaad wuxuu ka dhici doonaa Riyaad oo maalmahan ugu soo wajahan ay tagi doonaan wafti uu hogaamin doono Xasan Sheekh heshiiskaas Riyaadna uu ka miisaan culus yahay kan ee Dooxa Riyaad maalmahan ugu soo wajahan waxa ku kulmi doona madaxda wadamada Masar Soomaaliya Pakistan iyo Sacuudiga oo marti loo yahay waxaana kala saxan doonaan heshiis difaac maalmo ka horna maamulka Xasan Pakistan waxay u dirsadeen ama waxay u direenba wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya markii laga yimaado wadamadan ay tartan inay kula jiraan Imaaraadka haddana waxay isku bahaysteen fashilinta aqoonsiga Somaliland si ay uga hortagaan inaysan joogis ku yeelan Somaliland iyo badda casba reer Bani Yacquub ama Israa'iilba sana ognahay wadamadani si dadban waxay qayb ugu yihiin xiisadaha iyo dagaalada ka socda bariga dhexe ee ka dhanka Israa'iil sanadii dambena wadamadani waxay isku fidiyeen badda cas iyo geeska Afrika taana waxay walaac ku beertay Israa'iil markii dambena sababtay inay uga daba timaado xiriirna ay la samaysato Somaliland Mr. Prime Minister. xiisadii bariga dhexe badda cas u soo wareegay ama u soo wareejiyeen wadamada Carbeed waxay u ahayd Somaliland fursad dahabi ah waxaana ka furmay albaab 30 sano dheeraad ay ka fur waayeen wadamada Carbeed iyo Turkiga
haddaba aan dib ugu noqday bilowga mawduuca warbaahintan fadhigoodu yahay muqdisho saacadihii ugu dambeysay waxay qaadadhigayaan warar sheegaya nin dhalinyaro ah asal ahaan kasoo jeeda somalilan gaar ahaan gobolka togdheer magaciisana ay ku sheegaan mustafe inuu dharbaaxay axmed macalin fiiqi wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xilli wasiirkaasi uu kasoo baxay hotel uu ka degnaa magaalada dooxa warbaahintu waxay sheegeen ninkani dhalinyarada ah inuu wada ka ahaa tagsiile sababta gacanqaadkiisana waxay ku sheegeen inay la xiriirto arrinta somalilan fiqina wuxuu ka mid yahay safka horena kaga jira qoliyaha af iyo aadinba kula dagaasha somalilan iyo qadiyadaheedaba tani markay isdhaafsadeen somalilan israel aqoonsiga waxaa sii laba jibaarmay cadaawadda iyo cadowga somalilan cadaawaddaas ha u badnaato mid uga maanaysa somalilan xagga ee reer soomaaliya iskuday kastoo lagu doonayay in looga hortago aqoonsigaasna waxaa fashiliyey oo ka hortaga shacabka somalilan oo ka hor aqoonsigaasi aan midaysnayn balse aqoonsigaasi dartiisa ku midoobay taana waxaa ka mid tahay waxyaabihii laga faa'iiday aqoonsigan israel waxayna ku tusinaysaa midaasi aqoonsigan somalilan inuu yahay rabitaan shacabna cid ka hor imaan karta ama wax ka bedeli karta haba yaraatee ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu dhammaan ummadda jamhuuriyadda somalilan gudaha iyo dibaddaba si weyn ugu baaqayaa in ay ilaashadaan amnigooda wadajirkooda jiritaanka qarankooda cadowgoodana ay meel uga soo wada jeestaan oo ay af ficil awood iyo adduunba ugu jilib dhigaan cadowgeenna uu aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan khalkhalka ku riday madaxweynuhu wuxuu muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan meel kasta oo ay joogaanba ugu baaqayaa in qof kasta oo inaga mid ahi uu noqdo ilaaliye gaadh haye iyo danjiro qaran oo indho feejigan ku ilaaliya amniga iyo xasiloonnida qaranka jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu si gaar ah ugu mahadnaqayaa culimada sharafta leh ee jamhuuriyadda somalilan sida qiyamka diiniga ah iyo qarannimada leh ee ay u difaaceen jiritaanka iyo aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan iyo sida caqliga iyo xikmadda leh ee ay culimmada dalku bulshada jamhuuriyadda somalilan ugu wacyigeliyeen inay ilaashadaan amnigooda wadajirkooda iyo caqabadadooda diiniga ah gaar ahaan xilligan taariikhiga ah ee uu kordhay cunfiga iyo cadaawadda abaabulan ee loo qaaday jamhuuriyadda somalilan aqoonsigii ka bacdi sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu mahadnaq qaran oo mug iyo miisaanba leh u diraya dhammaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta jamhuuriyadda somalilan kuwa xukuumadda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba gudaha iyo dibaddaba sida tifiyada youtuberska facebookeriska influencerska tiktokeriska qolooyinka twitteriska iyo dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta baraha bulshada madaxweynuhu waxa uu warbaahinta uga mahadnaqayaa doorka qiimaha leh ee ay ka qaateen difaaca qarannimada adkaynta midnimada bulshada iyo ka hortagga wararka naxdalga iyo cadaawadda huwan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxa uu tilmaamay in qaybaha kala duwan ee warbaahinta somalilan ay muujiyeen mas-uuliyad qaran iyo dareen wadareed wadaninimo iyaga oo si midaysan hufan xirfad iyo aqoonba leh u difaacay qarannimada jamhuuriyadda somalilan islamarkaana iftiimiyey xaqa ay jamhuuriyadda somalilan u leedahay inay noqoto qaran madax bannaan oo ka mid ah beesha caalamka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu halkan si weyn mahadnaq ugu gudbinayaa dhammaan qaybaha kala duwane ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo iyagoo ah geesiyaasha hadh iyo habeenba heeganka ugu jira ilaalinta amniga dadkooda iyo dalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu sidoo kale salaan mahadnaq mug iyo miisaanba leh u dirayaa golayaasha qaranka ganacsatada aqoon-yahanka haweenka dhallinyarada ururada bulshada iyo bulshada qurba joogga ah oo iyagu kaalin lama ilaawaan ah ku leh geedi socodka aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan iyo kobcinta dhaqaalaha gudaha taariikhda somalilan waa marka koowaad madaxweyne shacabkiisa inuu mahadnaqo mahadnaqana qofna lagama qadin xitaa waxaa loo mahadnaqay kuwa komitiyada u daata waddan walbana dadkiisa ayaa dhista oo difaaca labadana way la yimaadeen reer somalilan shacabka waxaa la odhan karaaba waxay ka shaqo badan yihiinba dowladdii la egmaday taana waa hanti ama nimco aysan haysanba inta badan wadamada madow iyo caddaanba waxaa la weydiiyey madaxweynaha somalilan intuu ku sugnaa shirkii switzerland sirta ku duugan dowladnimada somalilan iyadoo hareeraheeda somalilan ay gubanayaan yeman soomaaliya etoobiya ayay ka nabad gashay saameyn aysan ku yeelan colaadahaasi wuxuuna ku sheegay madaxweynaha somalilan sirtaasi geedka hoostiisa isagoona sheegay xukuumadihii kala dambe ee soo mara somalilan mid walba inay la shaqaynaysay odayaasha dhaqanka wixii khilaafaada ka jira gudahoodana lagu soo dhammeeyo geedka hoostiisa
waxaa kaloo la weydiiyey maxaa sabab u ah amaba isku haya amniga iyo wadajirka Somaliland sirtu maxay tahay Well, our people has traditionally a local means to solve all issues, unlike other parties in the region. That's why we are, and because waxa uu sheegay madaxweyne Cirro in shacabka Somaliland ay si dabiici ah u leeyihiin farsamo maxalli ah oo dhanka nabadda ay ku sugaan gaar ahaanna in wixii mashaakil ama khilaafaad geedka hoostiisa lagu xalliyo waxaana ka mid ah inay kaga duwan tahay arrintaasi dhinaca Soomaaliya oo dawladaha caalamka ay ku daaleen shirarka isdaba joogga ah ee markaasi dawlad dhisidda Soomaaliya lagu bixiyay. We have a local mechanism to resolve conflicts, and that's why Somaliland has been kept peaceful. taasi beddelkeedana Somaliland ay xoogga saarto in dadkeeda ay wada hadlaan oo arrimaha amniga iyo danaha iskaga xidhan ay ka wada hadlaan iyagoo wada fadhiisanaya. intaana kasii gudin qodobkani waxaa laga kasalgariyay Xasan Sheekh ama waxaa laga joojiyay safar ku tagi lahaa Mareykanka sana ognahay habkooda bishan January waxaa la wareegtay Soomaaliya hoggaanka golaha ammaanka qaranka midoobay hoggaamintaasna waxa uga hartay 6 cisho bishan ay ka hartay markuu wuxuu doonayay Xasan Sheekh inuu ka faa'iideysto 6 cisho oo noo shir gudoomiye golaha ammaanka qaramada midoobay halkaan uu ka soo jeediyo khudbad ka dhan ah ama ka soo horjeeda Somaliland iyo Israel oo ku soo qaatay khudbadiisa Xasan Sheekh safarkii isbuucii hore ku tagay Laascaanood waxaase ka hortagay safarkaas Xasan Sheekh Mareykanka reer Beno Yacquub sanadkan maanta maamulka Xasan reer Soomaaliya ba si kastaba way ugu jabeen awoodoodu waxay soo aruurtay fadhi ku darir iyo dacayada raqiisan ee ka sameeyaan Somaliland iyo shacabkeeda maanta ugu dambeysay warbaahinta ku hadasha afka maamulka Xasan waxay beena ka faafinayaan burco ay lahaayeen waxa ka socda mudaharaadyo looga soo horjeedo aqoonsiga Somaliland beentaasi haddii ku aadin lahayn bari laga yaabo inuu socon lahayd maanta saree burco waxay ku wada maqnaayeen berbera halkaas oo ka socotay ama ka dhacdaba ciyaar dhexmaraysa laba kooxood oo kala metelaya burco iyo Hargeysa Cabdiraxmaan Cirro horta safarkiisu wax macna badan oo uu leeyahay ma jirto wala tahriibiyay Hargeysa ka tahriibay Addis Ababa maray kadibna waxa Switzerland uu tagay marka sidee loo tahriibiyay Addis Ababa diyaarad caadi ka raacay Hargeysa diyaarad caadi ka raacay Addis Ababa tagay diyaarad caadi oo ka raacay wararka ka imaanaya gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer banaanbaxyadani ayaa waxa ay yihiin kuwa ay shacabka uga soo horjeedaan aqoonsi beenaadka Israa'iil iyadoo guud ahaanba wadanka uu ka socdo banaanbaxyada waaweyn ee laga soo horjeedo xadgudubka maamulka Yuhuudda kula kacay madaxbannaanida Soomaaliya ayaa meelaha uu banaanbaxaasi ka socdo waxa ka mid ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dadweyne aad u fara badan ayaa maanta iskugu soo baxay bartamaha magaalada Burco kuwaas oo ku qaylinayay ereyo ka dhan ah maamulka Yuhuudda iyo sidoo kale maamulka Somaliland ugu dambeyntii ku saafbeera mawduucan caawa shalay maanta gobolka Salal gaar ahaan Soonaha Selac waxa ka socda dagaalkaas oo daba socda dagaaladii waayahanba ka socda gobolkaasi gadaalna ka riixayeen colaadahaasi Geelle Xasan iyo Mustafa Cagjar hogaamiyaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkan ilaa shil ka socda deegaanada saddex galbeedka Somaliland hadda waxa ku suganahay beeyo kulul baan ku suganahay dagaalku antaynu soo noqono dagaalku wuxuu ka bilaabmay saaka taleefan buu ka bilaabmay ilaa iyo wuxuu dagaalku haddana gaadhay ilaa iyo beeyo kulul buu gaadhay beeyo kulul baan hadda kala hadlaya walaal dagaalku saaka wuxuu dhacay isku horimaad buu ahaa duulimaad soo qaaday maleeshiyaadka beesha Ciise ee ka soo duulay city iyo shacab waxaan ka bixin karaa faahfaahinta maxaan idhaahdaa dhimashadoodu waxay ahayd 5 dhimasho daawacuna maxaan idhaahdaa aad buu u badnaayo ilaa 10 dhaawac ayaa jira meydkii markaa way ka carareen markay ka carareen meydkii annaga ayaa haynay hadda aduu ciidanka Somaliland ayaa la wareegay oo aan ku wareejinay laakiinse 5 meydkaba annaga ayaa maxaan idhaahdaa soo qaadnay iyaguna way ka carareen walaal maya walaal dhinac walba wax maxaabiis oo la kala qabsaday ma jiraan
hadda ciidanka Soomaaliland baa soo kala dhex galay xaaladii dagaalka halka ka dhacdayna aad bay imika u degan tahay wax khasaaro ma dhicin dagaal dambe la isku qaadayna ma jiro laakiin waa la isfar fadhiyaa any time uu dhici karaa maxay dhahday dagaalkaas walan horta goobaha lagu dagaalamay shalay bay dagaalku ka wahaa dhinacani bariga laga qaaday cali xayd buu ka bilaabmay ilaa iyo toob meesha la yidhaahdo uu joogay tooroboodha haddana la isla yimiday tooroboodhana waxaa ku dhintay hal qof baa ku dhintay laakiin iyagu way jabeen maya walaale annagu dadkii deegaanka ee deegaanka deganaa baan ahayn laakiin dadkani xuduudda soo dhaafay ee ka yimiday maxaan idhaahdaye city iyo faafan iyo Ethiopia inooga yimiday ciisihii ayaa waddanka ka dagaalamayay